Safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika Ismaaciil Soomane ayaa kulan la qaatay madaxda dowladda Koonfur Afrika ee gobolka Limpopo ee dalkani Koonfur Afrika kadib roobab lixaad leh oo sababay dhimasho, burbur iyo barakac dadweyne. Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Nuur Cali Nuur ayaa ka mid noqday dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay kadib markii isaga iyo gaarigiisa ay qaadeen fatahaadaha mid ka mid ah webiyaasha ku yaala gobolka Limpopo ee dalkani Koonfur Afrika. Safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya Mudane Ismaaciil Soomane ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyay kulamada oo la yeeshay madaxda iyo halka uu marayo raadinta iyo baadigoobka muwaadinka Soomaaliyeed oo maqan muddo ku dhawaad 10 cisho. isagoona dowladda Koonfur Afrika uga mahadceliyay dadaalka ay ku bixinayso baadigoobka muwaadinka Soomaaliyeed. xasan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyo adiga oo wakiil u ah TV-ga qaranka Soomaaliyeed dalka Koonfur Afrika oo runtii 5-6 maalmood oo arintan ay taagneed muwaadinkan Nuur Cali Nuur walaalkeen la la'ay runtii dadaalka aad bixisay iyo inta aad u taagneed inaad qayb ka noqoto barnaamijkaas ka gungaaridda xogta muwaadinka Soomaaliyeed. aad ayaan kaaga mahadcelinaa. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddoonka jaaliyadda oo garbahayga taagan gudoomiye Cirraweyne iyo xogayaha guud ee gobolkan iyo gudoomiyaha degmadan isaga laftarkiisa aad ayaan u mahadceliyo iyo saaxiibkii Cabdiraxmaan. intaa ka bacdi runtii arintan waxay dhacday 17 bishan aan ku jirnay January abaarihii 2 duhurnimo ama 1 iyo wax yar ayay dhacday. maalintaas laga bilaabo runtii dawladdan halkan deegaanka iyo community-ga waxay bixiyeen dadaalo aad iyo aad u fara badan oo ay lagu baadagoobayo ama lagu raadinayo xog walaalkeen muwaadinka Soomaaliyeed ee la waayay isaga iyo hantidiisii. 4 maalmood oo joogto ah markii xog la waayay waxaan ku qasbanaanay marka hore waxaan la xiriireynay community-ga hoggaankiisa iyo dadka ganacsatada halkan degan. ugu dambeyn waxaan ku qasbanaanay 4 maalmood kadib haddii aan xog lahaynin inaan imaano si aan u dhiirigelino waxa jira oo dhan si gaar ah ula shaqeyno dowladda Koonfur Afrika level oo qaranka iyo dawladda nationalka iyo dawladda gobolkan intaba. marka intaan nimid shalay halkan waxaa timid halkan waa meesha dhacda ka dhacday buundadii biyihii waa naga dambeeyeen xasan wax badan adiga wax ka tabiyay. waxaa yimid gudoomiyaha gobolka oo dhan ayaa halkan shalay timid booqasho ku timid iyo indhayn waxa meesha ka dhacayna ayda u kurgalaysa isla markaana teamkii hawshan ku jiray qayb ula kulmaysay. marka nasiib darro annaga shalay kuma soo gaarno safar dheer ayaan ku nimid laakiin halkan shalay waxaan ugu nimid oo runtii nagu qaabilay maayirka degmadan hadda aan joogno ee Tiendo oo warbixin naga siisay wixii jiray isla markaana ballan noo sameysay muxuu saakay 9 aroornimo xafiiskeed inaan isku aragno. sidoo kale xalay waxaan aragnay nin hogaaminayay operationka meesha ka socday iyo howlgalka ninkii hogaaminayay oo warbixin aad iyo aad u dheer na siiyay noona sheegay maanta oo ay taariikhdu tahay 23 aroortii inay ku soo biiri doonaan dad iyagana khubaro ah ama farsamo yaqaano kale muxuu ahay oo ka imaanaya magaalada Pretoria iyo meelo kale. sidoo kale saaki waxaan la kulannay mayorka ayaa mar kale ayaan fariisanay. sidoo kale mayorka waxaa la joogay khubaro kala duwan oo haddii ay yihiin communication-kii ninka xukumayay haddii ay yihiin risk disaster management muxuu ahay ninka agaasimaha ka iyo xafiiska mayorka iyo mayorda laftirkeeda. waxay xog naga siiyeen 6 maalmood ee ugu dambeysay wixii tilaabo la qaaday waxayna noo sheegeen rajada inay fiican tahay 3 arrimood darteed inay rajada fiican tahay. kow waxay yiraahdeen hadda waxaana soo gaaray tiimam kala duwan oo khubaro ah qalab ku filan wato waan filayna maanta qalabkaas iyo khubarada kala duwan inay arintan muxuu ahay qayb ka qaadan doonaan taana ay sahli karto in xog la helo. marka labaad waxay yiraahdeen biyihii iyo daamka ama webiga biyaha socday roobkii shalay maanta waa yaraadeen marka biyihii hoos u dhac yar ayaa jira hoos u dhacaasna xog inay naga caawiso ayaa laga yaabaa. tan saddexaadna waxay yiraahdeen 6 maalmood oo aan shaqada wadnay waxaan soo baxday in meelo badan la tago xog badan la ururiyo marka in ereyooyin gaar ah oo focuska la saarayo xog la saari doono in la toonsay inay jiraan. nasiib darro ilaa iyo hadda waxama suuragelin dib waxaa loo ballan bari aroortii halkan isugu yimaada halgankaas iyo baadigoobkaas muwaadinkeena ay sii socoto haddii alla